kulankani oo lagaga hadlayay sidii loo xoojin lahaa isku xidhka maamulka degmooyinka iyo tuulooyinka oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa waxa xiritaankiisa ka soo qayb galay maamulka heer degmo iyo waliba sidoo kale maayirada degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Elafweyn oo ka qabsoomay howlka shirarka ee xarunta dawladda hoose ee degmada Elafweyn ayaa waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay Mr. Axmed Cali Jaamac oo ku hadlayay magaca hay'adda Nagaad Network oo fulisay tababarkani waxaana uu sheegay isla markaasina tibaaxay hadafka iyo ujeedka iyo waliba mihnada xambaarsan yahay kulankani ujeedada hawshan waxay ahayd laba dhinac mid waxa weeye in la isku xiro maamulada heer tuulo gudiyada nabadda ee ka jira iyo khilaaf saarka iyo maamulka heer degmo ee degmada Elafweyn halkan tuulooyinkan muddo ka soo shaqeynay gudiyada tababaro deegaanadooda loogu tagay iyo wacyigelin waa la siiyay kana waa kii guud ee la isugu yimaanayay heer degmo dhamaantood ay soo imanayeen waxa isaguna halkaasi ka hadlay Foos Xasan oo isaguna kamid ah xubnihii ka faa'iideysanayay tababarkan isla markaasina ah gudoomiyaha degmada Hulul oo hoos timaada degmada Elafweyn waxaanu mahad ugu naqaynaa mar labaad tababarka naloo qabtay ay Nagaad noo qabatay waanu ka fahmnay faa'iidooyin badan oo lagu dhaqamo oo harana u jiray iminkana ay boorka ka sii tumeen si qaayo iyo qiimo leh oo faa'iidooyin badan aanu kala baxnay taana mahad baan ku naqaynaa ayaguna dhinaca kale halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka nabadgelyada degmada Elafweyn Maxamed Farax Cataye xogayaha fulinta dawladda hoose Saciid Maxamed Ogle Saciid Xasan gudoomiyaha degmada Elafweyn Baasha Xandulo Warsameeye eegas maayir ku-xigeenka degmada Elafweyn Salabaan Yuusuf Diriyo Dawa oo dhamaantoodba ku nuuxnuucsaday faa'iidada iyo mihnada miisaanka weyn leh ee ay tababarkani kaga faa'iideysteen isla markaasina waxa iyagoo maanta fursadan isku keentay faa'iideysanana bay yiraahdeen ee ay kulankan kaga soo qayb galeen dhamaanba maayirada degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Elafweyn inay si weyn uga qayb qaataan mashruuca qaadaanka wadada isku xidhi doonta gobolada Sanaag Saraar iyo sidoo kale Togdheer dhamaan waxa ku marasan team leaders ki heer tuulo ama mayors mid walba ha ahaado hal fariin oo seminar ka baxsan oo ah inaad ka qayb qaataan wadada loo sameynayo gobolka Sanaag iyo Saraar isku xilasa tuulooyinka waxaan ku boorinayaa in waxaan idin keenaa insha Allah buwaagta cashuuraha ayaa idin keen doona in guriga la cashuuro baloorka banaan la cashuuro waxa insha Allah baan ku boorinayaa insha Allah si dhaxsan waxaan ku keenaa buugtaas waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland Elafweyn